السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لمان أصحابتك وحران جنالك فيفا الصومالية وحان إذن الله يهي قلب وناكسر مالك استاكي جوكتان الدونك كسو دوادا مسلسلكي أفرت ولا رنهانتي سيدا أوكتين بمسلسلك waxa uu noo marayaa meel xamaasadeed ay aad ku soo jiidanayso wuxuu joogaa meel wiil iyo waalid ay gacanta inay isla galaan ku dhowdahay sawirka idan muuqda waa Caakif Atakool iyo wiilkiisa Daroog oo ku kala tagay nolosha guriga Daroog markii uu ogaaday in wiilka guriga ku nool oo dhalay aabihiis ayuu isaga tagay guriga aabihiisna yiri kuma aqaan inta ka dhiman nolosheeda woona ka fogaaday balse inta uusan fogaan ka hor waxaa laga xayuubsaday kaararkii uu ku isticmaalayay lacagta bangiga iyo gaarigii uu ku raaxaysanayay Daroog wuxuu maalintii oo dhan heehaabo magaalada dantu waxay ku kaliftay habeenkii inuu u hoydo gurigii doorada weligaa qofna ku cayn noloshiisa weligaa qofna xumayn run ahaantii haddii aad nafsi gasho nafsigii adiga unbuu ku soo dhammaanayaa aakhirkii qof raaxo ku jiray ayaa rafaad gelayo qof rafaadsanahna raaxo ayuu gelayaa taas waa mid ilaahay oo maamulkeeda hayo ee weligaa qofna ku cayn duruuf iyo meesha uu degan yahay iyo dharkiisa iyo cuno la'aan ka xisho wixii mataqaanaa alle uu ku yiri ka xisho run ahaantii xaqii waa u soo baxay Daroogna caawa wuxuu u martiyay gurigii afarta walaal iyo adeerkood waa la soo dhaweeyay oo waxaad ogaanaysaa inta badan in ay qalbi wanaagsan yihiin dadka fuqarada ah waa dadka nolosha hoose ku nool oo faqiirka ah filmka waxaad ka baranaysaa kibirka taajirka iyo faqiirka samarkiisa farqiga u dhaxeeya run ahaantii Daroog way soo dhaweeyeen ma xumeyn balse maxaa dhici doono in ay u soo dhamaado Daroog qalanjada idin muuqata waa Aasiye waxaa dhacay in Daroog gaarigii markii uu ka soo tagay gurigan uu soo hoyday subaxii xilliga iskoolka la aadayay ee ka bixiso Aasiya lacagtii baska marcida ayuu soo dhacay Daroog wuxuuna u soo dhamaaday gurigii Aasiya iyo ayagan waxay ku soo dhaweeyeen qalbi wanaagsan waliba iyadoo la dagaalsan Aasiya iyo isiga colaad ka dhaxaydo ayay waxay u haysaa niyad wanaagsan ee ka dhiibeysaa basraaci isboot ahaan ugu ma dhiibeysa waxay ugu dhiibeysaa bini'aadanimadu waa shay qaali ah in la isku dhoorana ay tahay waajib